waxaan muuqaalkan kusoo gudbinayaa caddeymihii aan sheegay inaan soo gudbin doono oo ninkaan la xiriiray markaan cadeymo leeyahay waxaan ka hadlayaa waxaa weeye waa documentation iyo waxyaala dadku ay fahmi karayaan oo lagu qanci karayo inta aanan bilaabinse waxaan rabaa inaan ka hormariyo wax yar oo disclaimer ah marka ugu horreysa inaan ninkan investigation aan ku sameeyo lama xiriirto yarkan kale oo taliya la leeyahay lama xiriirto aniga iyo taliyuhuna isma naqaano isku reer ma nihin xataa geeriyo gadnagu isma boodo arkaysaa taa waa halkaa aragtida aan ka qabo inaan baaro dadka aan u arko inay ummadda dhibaato ku yihiin kuma xirna yaa kugu reera yaase kaaga reera arrintaan wax kuga fiiriyo weliga intaan public soo istaagay 1% xataa mas'alo reereed waxba kuma qiimeeyo anugu haddaan wax ku qiimeynaya wiilkii ninkaan ka horreeyay aan ka hadlayay dayax la oranayay ee dhalinyarada ahaan iri mashruucyadii la yaabka lahaa buu qayb ka ahaa dad asaga ii xiga asagana reernimo aan kusii dayn lahaa haddaan nin aan u arko ummadda inuu dhibaato ku hayo aan reernimo kusii daynayo taa waa intaa haddii aan arrinta maxamed aan gudagalo runtii waxa aan maxamed ka hayaa haddaan dabcno inaynu samayno documentary caadi oo series ah soconaya oo midba midka ka dambeeya ummadda ka yaabinaya ummadduna ay kala shakiyayso ayaan halkan ku hayaa waxaan isleeyahay umuu qalmo intaasoo waqtiga inaynu ku bixino laakiin wuxuu u qalmaa in ummadda aan tusno isla markaasna ummadda go-aanka ka qaadanayso ayaday u taallaa mas-uuliyadda saaran waa inaan ummadda ooga digo khataraha aan ka hadli doono dalka Sweden la yiraahdo ninkan uu ku nool yahay wuxuu leeyahay public records Mareykankuna uu leeyahay Yurubta oo dhan way leedahay public record maxaa la yiraahdaa markaad guri ijaarato markaad laysan qaadato markaad accident gasho markaad maxkamad tagto markaad qof disho markaad qamre cabto lagu qabto waxaayo dhan informationkaasi waa public record cid walba ayaa access gareyn karta ama la soo bixi karta wax alla waxaa tahayna waa la arkayaa public record-ka ninka ayaan baaritaan dheer ku sameeyay oo dalka inta uu joogay wana ku cusub yahayba dalka Sweden xilay la yaabka lahaa markii indhaga ay soo qabteen waxaa ka mid ahaa dhawaan wuxuu ka soo guuray magaalo wuxuu soo guuray magaalo kaleeto magaalada markii uu soo guurayay guryaha la ijaartaa dadka guryaha ijaartaan dalka Sweden la yiraahdo waa dal runtii la yaab leh weeye markaad guri ijaaranaysid column-ka qaybta lamaanaha ah waa in la buuxiyaa weeye ama yes arno markaad yes tiraahdo saddex qaybood bay lamaanuhu u qaybsamayaan midda ugu horreysa waa inay ama husband ama wife ay kula socoto aad ku buuxsanayso hadba kii aad tahay midka ku xigana waa inaad wax loo yaqaano cohabiting partner waxay dhahaan ama lamaane aan isguursanin laakiin nin iyo naag ah laakiin doonayna isguursaan oo kaleta ama laakiin wuxuun ka dhexeeyaan isla degaya iyo finally waxa loo yaqaano registered partner waxa la yiraahdo waa iyaduna topical oo gooniyan u fiirin doonaa registered partnerku markaad fiiriso markaa waan faaray oo aad u baaray waxaan ogaaday in 1995kii ay Sweden baas gareeyeen sharci lagu support gareynayo xuquuqda ay leeyihiin qowmanuudka ayagaan loogu talagalay registered partnerka marka registered partnerku marka waa inay shahaado heli karayaan laba nin oo isqabta iyo laba naagood oo isqabta dawladuna way aqoonsan karto reer meel degan waana column ayaga loo sameeyay markaysaan marka waa laba qof oo same sex ah ama gabar iyo gabar oo kale ama nin iyo nin oo kale taa way wax loogu talagalay harta marka la yaab kalo shocking-ka waxay tahay maxamed guri buu ijaartay asaga nin kale guri isla ijaartay waxay buuxiyeen formkaasi waxayna ku qoreen inay registered partner yihiin bay ku qoreen oo ah inay yihiin laba nin oo isqaba ama laba nin oo doonayay isguurstaan ama laba nin oo xiriir sarreed u ka dhaxeeyo ay ku buuxsadeen dawladdu artaasi public information-ka keenaysa markii aad soo buli garaysa marka qaybtaas waxaa arkaysaa marka mahad iyo maxamed waa laba nin oo xagga dawladda markii la fiiriyo marka isqaba ama laba nin oo xiriir sarreed u ka dhaxeeyo oo column-ka ku jira ragga isqaba ku jira kee la qabaa arano mid kala qabo taa waa halka arrinta kaloo la yaab kale ayaa marka waxay tahay waxaan kaloo soo helay book dheer oo nin wariye ah oo Swedish ah asagoo naftirkiisa u dooda nimanka qowmaluudka ah aadna u support garay projectadana ka shaqeeya uu qoray ayaan dhawito wuxuu ka hadlayay marka dadka muslimka ah ee qayb badan oo kamid ah Soomaalida ah ee qowmaluudka noqonaya oo aadna u encourage gareynay wuxuu ka hadlay 9 nin oo laga soo qaaday dalka Egypt oo halkaan la keenay waqtiyo kala duwan la keenay ayuu ka hadlay 9kii nin maxamed ka dhax aqooda magaciisa oo buuxa macala sawirkiisa oo balaakan wada ku jira hadii loo baahdo qayb kale ayaynu ku sheegi doonaa qaybta oo very important tiga marka maxamed horta waa ninka harayna u sheego ummadda marka waliba hadda anigu Moses Bishop baan sii noqonayaa harayna dadka dhalinyarada ah ee qurbaha jooga aan ku encourage garay dad qof guursanaysaan haddaad qof shaqaalaynaysaa haddaad qof la macaamilaysaa public information-ku waa public cid walba soo access gareyn karta raadiya qofka aad wax la macaamilaysaa
dambiyada dalka uu ka galay maxay tahay informationkiisa maxay tahay muxuu soo maray taariikhdiisa maxay tahay xataa citationska iyo tigidada uu qaatay waa lasoo qaadaya public way maaha arrin cid khaas ah loogu talagalay website-yo yar baa lagu guraa dowladdu ay leedahay lacag yar baa la bixiyaa user name baa la samaystaa waa lagu siinayaa reportka waa loogu talagalay saxaafadda loogu talagalay booliiska loogu talagalay dadka waxbaaraa loogu talagalay xataa macalinka canugaaga wuxuu dhigayaa inuu yahay gay inuusan gay ahayn waad kala gaan kartaa waxaad oran kartaa macalimadda canugteeda wax baraysaa ha layga fiiriyo ama ha layga bedelo waad ka leexan kartaa si aan ilmahaaga aan looga dhigin qoboloodka oo waxyaalaha waqtigii baray bay ka mid tahay su-aashaan kusoo koobi waxay tahay ma wadaa mise intaasaa idinkaga joojiyaa commentiga igu soo qoray aad baan idiin salaamaya kiiskaas waa xiri doonaa biidnillaah dib baynu isaga soo laaban doonaa arrimahan iyo wixii kaloo aynu qaban karno asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu